wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa markii ugu horeysay beenisay warar 24 saacadood ugu dambeeyay soo baxay oo sheegaya in xanuunka coronavirus uu ka dilaacay xabsiyada Somaliland. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo 27 Abriil warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in aanay warkaasi waxba ka jirin haddii xanuunka coronavirus uu ka dilaaco xabsiyada Somaliland in ay bulshada la wadaagi doonaan. agaasimaha oo hadal ku jira oo wali aan cadaynay inuu xanuunka qabo ma jiro qof jeel ku jira oo aan cadaynay ma jiro manaan odhan waxa uu gudbay xaabista in badanna waxa aan ku celcelinay warka rasmiga ah ama warka bulshada loo gudbinaya waa warka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka haddii hal qof oo jeelka ku jira laga helo waan la wadaagaynaa bulshada qarsoodina maaha xanuunkan inaan u qarsoodi yahay waa sababta subax walba halkan aan u taagannahay ee intii naas oo miidiyaana ay u imanayso ee bulshadiina ay nagu sheegayeen marka waxaynu qarinaynaa ma jiro qof ku jira jeel oo xanuunka laga helayna ma jiro horta labada arrin way ka baxsan